بعد السلام halkan shirkan saaka waxaan u qabanayaa aan ku hayno waxa weeye ayagoo jooga gurigayga ayaa waxa la ii magacaabay xubin kamida xubnaha madaxweyne ku magacaabay baan kamida oo la igu daray taasoo aan laygala tashan leena weydiin sidaa darteed halkan waxaan ka cadaynayaa inaan ka mid noqonayn iskana casilay oo aan laygu talagelin waxii aan dastuurka ogolayna aan aqbali karayn odayna waanahay dadka reer Puntland dhexda kaga jira caana mas'uuliyadda Puntland ka soo qabtay mana doonayo wax khilaafsan Puntland waxyaalo ku ah ama khilaaf u keenaya inaan ka mid noqdo ma doonayo xubnaha magacaabana madaxweynuhu magacaabay ilaa Cabdillaahi Yuusuf waan la soo jiifay xubno kastoo la magacaabayo guddigaas xubno kastoo la magacaabayo mar walba waxaa magacaabi jiray sida dastuurku yahay madaxweynaha ku-xigeenkuna wuxuu ku leeyahay talo soo jeedin madaxweynuhuna wuuna qaadan karaa waana diidi karaa waa sida dastuurku yahay weeye sidaa darteed xubintaa iyada ah ee madaxweyne ku-xigeenku igu magacaabay halkaasay maanta igaga eg tahay halkaasaan iskaga casilay ummadda reer Puntland aan u sheegayaa Puntlandna waxaana weeye waa laf dhabarta federaalka Soomaaliya federaalka iyadaa dhashay dowladda federaalkana waxaan leeyahay federaalku iyo abaaldhici Puntland iyadaa dhashay iyadaana abuurtay iyadaana hooyo iyo aababa u ah Puntlandna waa jiraysaa waana joogi doontaa insha allahu bilkariim farafaraynta laga daayo federaalku farafaraynta uu qodqodayo ee Puntland doonayo inuu wax ku yeelayo ha ka daayo farafaraynta taasna intaasan raacay ku daraya maasantii marka magaalada tashtay markii lagu magacaabayay maya lagalama tashan suuqa uma ka maqlay warka ma kulantay marka intii la magacaabay mise ma waliba ma ana kulmin nin odayaan mar saragnay haddii cidi joogtaan saragnaa nulbi taasina waa soo geli wada waa urban wada waa dhalan wada marka aad maxaa ka aaminsantahay warqadaas la soo saaray warqada lagu magacaabay waxaan ka aaminsanahay inay jirin inay socon baan u aaminsanahay oo madaxweynuhu soconayso waa yiraan maalintii Cabdillaahi Yuusuf ee Puntland la dhisay dee waa la soo jiifay intaana madaxweynuhu magacaabay wadadiina ka leexan waysa wadadii uma wax lagu wadaya laakiin se madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka waa inuu kala tashto alhabay iyagoo wax sheegeen inaanu kala tashan marka maxaa xal noqon kara bay kula tahay haatan taasi waa jeebkooda hadday wada tashan waayeen taasi yaa la weydiinaysa maxaa wada tashan weyday iyaga dadka mas'uulka ah iyaga weydii iyaga xaq u leedahay xal noqon kara marka haatan xal noqon kara madaxweynayaashu taan bay wadada bay weligood qaadi jireen wixii la diidan yahay waa gaar laakiin wadadii lagu socon jiray waa wadada madaxweynuhu uu weligiiba wax ku magacaabi jiray Cabdillaahi baa ku magacaabay caddaa ku magacaabay farora ku magacaabay cabdiwalna tium bahaya lagama leexin karo iyadoo dib lagu noqdo dastuurka wax laga bedelo mooyaan lagama leexin karo maxaa ugu baaqaysaa saaxiibadaadii kale lagu magacaabay saaxiibada waxaan ugu baaqayaa hawsha iyada yaa Puntland qas la gelin waa inay Puntland qaska laga ilaaliyo wax yeelaya iyo wax dhaawac u keenaya hal iska ilaaliyo